حجاب كحرن يا حشاتا حرمية يا مودان حق دور مرقبة دجوك يا حجاب كحرن يا حشاتا حرمية يا مودان حق دور حدقتي أفريقيا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حدقتي أفريقيا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حمار كودا طاي حراقة الكسليمي حفيظه صومالي ذو حراطاي عمري إليك حفيظه حدقتي أفريقيا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حدقتي أفريقيا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حدقتي أفريقيا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حرمية يا حق دور
بس عبد الله ماشي عبد الله عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حارم حديقتي أفريقيا حلقي قرنقاي عيال حمري عيال حمري حرير قلبي حارم باتاي dhanka habeyntii soo saaristuna waa Cabdiyaas Kaarin Ethiopia كو بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرحديت ومالين aad u weyn waa maalin qiimo badan waa maalin ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan asxaabta miidiyaha iyo YouTube lay iyo TikTok lay iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee wasiirada xildhibaano dhammaan wariyaasha intaba ay soo dhaweynayeen maanta walaalkeen Asad Xajiyo ogtiin shakhsi qiimo badan ummadda Soomaaliyeed macno u leh inuu yahay waxa laga dareemi karaa soo dhaweyntiisii oo maanta meel kale istaaga runtii la waayay waxaan leenahay Asad soo dhawaaw kuna soo dhawaaw magaalada Muqdisho dadku jecel qalbi ku jecel siyaasiyiintii shacabka Soomaaliyeed waa dad ku midaysan waana dareemi kartaa u maleynaa runtii wax walba waxa kaaga filan soo dhaweyntaadii ilaa diyaaradii ilaa hadda aan joogno wali airportkan gudihiisa ku jirno oo wasiirro iyo xildhibaano iyo ururka haweenka gobolka Banaadir iyo madaxda gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada ku soo dhaweeyeen iyo dhammaanba golaha wasiirada hadda garbahaaga fadhiyaan Asad qalbideena ku weyn tahay marka waxa la dhahay mogtahay waxa jiro xadiidka ahay tahabu wa tahabu markii qalbiga la isku hadiyeeyo wala jeclaada waxa waaye waxaad ka dareemi kartaa xadiidka la jiro dhahayo antum shuhadaa Allah fi al-ard macnaha waxa marqaati laga yahay maanta ummadda Soomaaliyeed marqaati ka tahay iyo adduunweynaha intaba iyo Allah subhanahu wa ta'ala marqaati ka yahay in qalbi wanaagsan dadka dhan ay kugu yimaadeen
qof gaar ahaan iyo gooni ku yimid ma jiro intaan waa ummad Soomaaliyeed oo midaysan oo ku jecel sidoo waxaan ka baqnaba inaan xilalkeeni qaadatidba asada soo dhawaada soo kaftan annagana waxaa waaye Malaysia kugu imaanayna anagoo badan insha Allah soo dhawa wasiir waxaan ku diri lahay doorashada qofkii codkaba maanta waa bilaabataba waxaan ka baqaynaa haddaad gobolka banaadir u istaagtid inaa gudoomiyaha gobolka banaadir raqatid laakiin waa ka ilaashanaynaa intaasaan kabta soo dhawaa wasiirku soo dhaweeye ديارة بسم الله الرحمن الرحيم وحشرف وين يا مانتا runtii qalbiyadeena ruuxday dareen gooniya noole ummadda Soomaaliyeed especially dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah maalin weyn nin dhalinyaro ah oo runtii taariikh iyo miisaan iyo sharaf iyo karti iyo dadnimo muujiyay kana turjumaya dhalinyarada Soomaaliyeed dhabar adeegooda halgankooda nololeed si kastoo ay mataqaana xal walba ay ku sugan yihiin asad wuxuu halkan ka baxay 12 sano ka hor dalka Soomaaliya aniga dhalinyaro ahaan ay ii taabanaysaa Asad Xaaji imaanshiisa waxay ii taabanaysaa qof wada kasta oo Soomaaliya qof walba oo hadda Soomaaliya jooga iyo xaaladaha uu ku sugay markii la fiiriyo inuu rajo leeyahay asad waa rajada ummadda Soomaaliyeed waa iftiin waa dad nin hammi geliyay shacabka Soomaaliyeed tusinayana Soomaaliya iyo dhalinyaradooda inaysan quusanin waxaan kaloo runtii aad ugu mahadnaqayaa Asad Xaajiyo dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo u garab taagan yahay sidoo u soo saaray dadku waa laba nooc dadka qaarna waa ayaga ayaa soo baxa dadka way hilmaamaan laakiin asad taariikhda aan ku naqaano ku aragnay ku daawano runtii aan fanisna ugu nahay waxa weeyaan markaan arkayno 27 qof team 27 inta ka salaamaya inuu soo kicinayo uu leeyahay ana hebel u furay YouTube-ka ummadda Soomaaliyeed ay sidii aniga daraadeyda halkan ku raaca dhalinyarada ayaguna waxaan leeyahay fariin asad iyo inta la midka ah ee runtii halgamaysa waxaan idin leeyahay halganka halkaas ka sii wada dalkiina iyo dadkiina iyo qoys la'aanta aad ku jirtaan waa himilada dalka uu leeyahay waa mustaqbalkeena maanta guud ahaan waa maalin shucuur gooni leh waxaan ku faraxsanahay asad in aan ahaa qofkii runtii diyaaradda gacanta ka soo dejiyay oo ku soo riixay waxa ii tahay maalin aan xasuusan doono asad dalkaagii hooyo ummadda Soomaaliyeed iyo jacaylka ay ku hayaan waxaan leeyahay runtii qof wanaagsan oo mararka qaar geemka markii la ciyaarayo markuu dhahayo waxaan ku heystaa haddii aan qaldanahayna hoos iga sax waa fiirinayaa macnaha kartida bulsho isku wadka sida loo baahan yahay waxaan leeyahay runtii hadda dalka waa socday guuleysta asad maanta waa inoo timaaday dalkaagiyaa timaaday laakiin waxaan hubaa joogitaankaada haddana inuu noo qorsheysan yahay balaan waaweyn aan jecel lahay runtii in mataqaana ummadda Soomaaliyeed si gooniyana maanta ito aan shacabka waqti ku siino galabta aad ku nasato kadibna annaguna iyo waxaan rajaynayaa iska daba joog invitation inay ku soo dhici doonto mas'uuliyiinta dalka ugu sarreysa iyo annagaba in mataqaana si gooniyan kula kulmeen shacabkana aad u gudbin doonto intii damiirkaaga iyo dareenkaaga dalka Soomaaliyeed oo haysid aadna aragtid dalka si ku jeceliin ku soo dhaw asad mar kale aadiyad bismillah asad dhammaantiin waa mahadsantiin qof walba wuxuu ka hadlaya Asad Xaajiyo laakiin 12 sano ka hor markaan inta ka tagay noo ambalaas saaran oo Cabdullaahi dhabarkiisa saaray dadka hadasho malaha Cabdullaahi shal anoo dhaawacan qaaday haddana waa kana anoo bulshadan ijecelihiin ay soo celisay baraada waxa ku leeyahay mahadsan tahay inta ka horeyso waxa halkaan aad iyo aad u mahadcelinaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda
iyo team 27 dhammaan waqtigoodii soo horay soo dhaweynteeda waxaan filin ayaa dhacay oo waxa maqli jiray yani qofka yani waxa tabaysa markuu ka tago oo kale ama yani waxa tahay waxaad ogaanaysaa markii meel aad tagto oo kale ama waxyaabahaas oo kale maanta waxa ogaaday in Soomaalida dhan ay wataan dhammaan team 27 waxa leeyahay waa maasantiin dareenkay ma kusoo koobi karo isla airportkan ay joogo 12 sano ka hor anigoo nolosha ka dhacay oo turaaji u surantay dhiig baxay ka tagay haddana waxa ku soo laabtay alxamdulillah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa maasantiin waxaan runtii aad maanta dareenkeena noo taabanayo walaalkeena waxaan rabaa hal tusaale meesha inaan ka taabano oo kale walaaltinimada waxay tahay asad xilligu baxayay waxaa garab socday walaalkiis Cabdullaahi tiimna uu ku soo noqday Malaysia qofka walaalka ah hatta waxa aad ka arkaysaa Cabdullaahi Xaajiyow oo laga baran karaa ummadda Soomaaliyeed walaaltinimada miisaanka ay u leedahay qofka asad maalintii walaalkii wuxuu qaaday asad Xaajiyow wuxuu qaaday isagoo xilli xanuunsan aad u dareen shucuur kale iyo waxa isbitaalka ka imaan kara aan la garanayn maanta wuxuu soo noqday walaalkiisoo hero ah anaga dhan aan taagna ummadda Soomaaliyeed tusaale Cabdullaahi waxaan leenahay anagana gacanta waxay noogu heysay asad walaalaha la dhashay Armaan iyo guud ahaanna waxaan leeyahay sidoo kale maasantiin hooyo asad Xaajiyow waxaan leeyahay maasantahay sida gelinta runtii family asad Xaajiyow waxaan idin leenahay Soomaali waa asad Xaajiyow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ورسول السلام انتين. وحنا هلكان ومهد علينا يا ضمان وزير هذا ان صوماليين أنا كالساريني سيدا وناكسن إنه سودويين وحن فيلين داعي مانتا ان حكومة سنتين سودويين تادم سودويين وحنا الله نهاية بس لجونا انت أركويننا بنانك تاجنا يجنا وحنا لا فعلا نقطة وحنا مهد سنتين إن شاء الله مالين كلام نوبلنا وأنا سأركض دونه وأنا مهسنتين لبان. بس انت نقدر